kalfadhigani oo saaga ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama isla mar ahaantan ay soo xaadireen aqlabiyada xildhibaanada golaha deegaanka Boorama ayaa lagu ansixinayay miisaaniyadka 2019 waxaana shaqdoominayay maayirka Malaba loo doortay inuu hogaamiyo magaalada Boorama Mudane Salibaan Xasan Xaddi koorinta cod la gelin miisaaniyada ayaa wax faahin ka bixiyay miisaaniyadani iyo waxyaabaha loo qorsheeyay xogayaha dawladda hoose ee magaalada Boorama Xasan Yusuf Riiraash waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan maanta isku nimidnay inaynu ka doonno ama kalfadhigii furno miisaaniyadda 2019 maanta bishii 8 bishii 2018 todobadiya waxaynu maanta gudagalaynaa oo xildhibaanada badankoodii fadhiyaan gudoomiyihii fadhiyaa wagaasiin maaliyadda fadhiyaa in laga doodo miisaaniyaddii 2019 iyo miisaaniyadda 2018 wixii soo xirooday iyo wixii haray in laga wada doodo loo wada fadhiyaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin golaha deegaanka ee degmada Boorama maanta waxaan u fadhinaa kalfadhigii aan ku ansixinaynay miisaaniyadda iyo qodobo kale oo badan oo lagu hormarinayo degmada oo ilaa 7 qodob ah haduu la yiraahdo kullay halkan waxaan uga sheegaynaa bulshada reer Boorama sidaas oo kale maayirka magaalada Boorama Salibaan Xasan Xaddi ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay kororka sameysay miisaaniyadda sanadka 2019 isagoo si faahfaahiyay goobaha loo qorsheeyay in sanadkani laga hirgeliyay miisaaniyadda 2019 waxaana uu ka dhawaajiyay golihii waa kaas uu dhameystiran yahay wax ka dhiman qofka maqan ma jiro waad arkaysaan inta maqanina waa in hawlo ku maqan oo 2-3 qof waxaan ugu talaga iyaguna hawl bay ku maqan yihiin oo cudurdaar bay ku maqan yihiin oo 2-3 qof xildhibaan hawsha golaha deegaanka hadii ay la oran jiro kala maqan yihiin maanta way dhameystiran yihiin waxana meel looga soo wada jeestay in golaha ayna degmada la hormariyo inta muddada noo hadhay hadii la yiraahdo miisaaniyadda 2019 waxay korodhay kulay faahfaahinta waxa agaasimaha ku wareejin doonaa boqolkiiba 5 bay korodhay sanadkii hore marka loo eego taas waxay keenaysaa oo ay muujinaysaa in wax qabadka iyo dakhliga degmadu marba marka ka dambeeyo kor u socdo kol haduu dakhligu kor u kacayo waa in wax qabadka degmaduna kor u kaco sida ka muuqata wadooyinka iyo meelaha kale bulshada reer Boorama maanu doonina inaan halkan fariin uga gudbino hawsha aan maanta u fadhina waa mid dantooda ah waa mid danta degmada ah waxa goluhu maanta u fadhiyaan ay ka hadlayaan ay ansixinayaan iyagana waxa laga doonayaa qodobada halka ka soo baxa ee golaha deegaanku ansixiyo cid ka hor iman karta inaanay jirin ay tahay baarlamaankii degmada sifaha sharci loogu soo doortay inay yihiin hadii wada la banaynayo ay tahay hadii ay tahay percentage ama meel heerad badan oo lacago ku hakadeen sida shirkadaha leerka iyo isgaarsiinta oo runtii markasta miisaaniyadda ku jirta intaas kadib waxa cod la geliyay miisaaniyadda 2019 ee dawladda hoose magaalada Boorama waxaan dhammaan xildhibaanada soo xaadiray kalfadhigan oo tiradooda dhamay 18 xildhibaan ay dhamaantood codeeyeen miisaaniyadda ay tahay mid asaxa waxaana xusid mudan in kalfadhigan maanta xildhibaanada golaha deegaanka Boorama yeesheen oo noqonaya kalfadhigii ugu horeeyay dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka Boorama soo xaadiraan isla mar ahaantan si wada jir dhamaantood ugu codeeyaan miisaaniyad laga ansixinayo dawladda hoose Mustafa Caraale SABTV Boorama.